soo dhawaada saaxiibayaal waa walaalkiin Cawiif channel kan daawanaysan waa bartaan kulana YouTube-ka Cawiif channel fadlan hadda noo cusub tahay subscribe de oo kamid noqo 1k subscribe oo soconaay dadkii oo nageyn lahaa kamid noqo insha Allah bidin al-kariim maantana waxaan rabnaa in aan ku soo gudbino halkan waxyaalo fara badan oo bariyahan aad looga hadlayo dhanka social media waxyaabo ugu xasaasiysan ayaan bariyahan waxaan jecelnahay inaan xogo reaction ka bixino waa la socotay channelka inta nagu cusub inta joogtay waa hore ogiin inta kale nagu cusubna waxaan leenahay channelkiin waa ku soo dhawaada subscribe dhaha daawashadan oo baday aad u maasantiin bariyahan waxa aad looga hadlayaa dhanka social media gabdho la kufsaday waliba gabdho aad u sharaf badan aad u qurux badan gabdho asturan waa hadda inta anaga ka aragnay ayaa la sheegayaa inay kufsadeen rag gaaraya 20 sida ogtihiin ba saaxiibayaal bariyahanba waxa aad u sii badanaya ama social media ama bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ahaatee waxa aad u badanaya in la xumeeyo dumarka ragga ay dumarku xumeeyaan waliba aad ma hadda waxa way aad u yartahay in ragga ay dumar xumeeyaan laakiin waxa badanaya in ay ragga dumarku ay xumeeyaan ma aqaano saman aakhir maal si galaya ma raggii Soomaaliyeed raggooda wanaagsanaya si yaraanaya oo dad ku xumaay bisa soo badanaya u sheegi karo saaxiibayaal sanadkii hore soo dhaafnay waa ogtihiin gabar si naxariis darro ah inaan soo xasuusnimay in aan u gubnay oo wiil Soomaaliyeed u gubay tii waa hore u tagtay daliil fara badan hadda oo la soo koobi karin ama ha ahaato kufsi ha ahaato ama waxyaalo kale ha ahaatee maalmihii ugu dambeeyay ama sanadkii hadda noo soo dhamaaday ama kan bilowgiisii aad ay u sii badanayeen bal saas yeeshee maanta waxa qodobka aan xogo inaan ka tataamano ama aad noogu murjiyay oo maanta fikirka aad iga dhex buuxay wuxuu yahay laba gabdhood oo walaalo ah ayaa la sheegay maalmahanba aad loo dhax socdaa in ay kufsadeen 20 rag bal fiiraadi 20 rag macquul way qalad way gal karaan laba nimo rag oo Soomaali waa gal karaan xataa saddex ba ka dhig laakiin 20 rag oo fikirkaas la qaatay bal ka warram gabdhaha miyaysan ahayn kuwii walaalaheen ahaa kuwii annagana dhalay kuwii annagana la dhashay kuwii ilmihiina dhalay lahaa kuwii dhalay lahaan intaba waa gabdho waa kuweena Soomaaliyeed waa kuwan sharafta badan waa kuwan muslimiinta حتى عالمك لقما أقوله وحيالها كفسية ولي بعالمك معناها وضمات الجالة حتى كفسية لقما أقوله والشيء آد وحواي أننا مسلمين دينتين أي دي بلسدين أوجو بنين كرتاه صاحب بيال ونيك استوى فكر كيسة مركو دبو فيديو والشيء آد وقرار واحد اللي بلسدين وكسيد بدنا يا مرق الصوماليات كويد وحما سي بدنا يا ما قانو fidnadaas faraha badan aad ay nooga haystaan dhanka gaadanahay bariyaama waxaan ku wareeganaynaa xumeynta haweenka kuwina dhalay waaye kuwa walaalaheen waaye meelaha marba ugu tagi karna ma lahan mar walba anay dhinaceen yihiin haddii ay haween ahayn intaas soo gaari lahayn ragga horta waxaa leenahay inta nagu xiran aad u xishood baatihiin balse waxaan ku gubaabinayaa mar kasta haweeneyda ama dumar aan dhahnay haddii ka gardaran tahay iyo haddii aad gardaran tahay labadaba gardaran haweenka aan ixtiraamno si wanaagsan aan ula dhaqanno haddii 20 qof oo dhalinyaro isku raaceen in ay laba gabdhood ay kufsadaan shay macquul ma ahan haddii maxkamadda la geeyna nimankaas waxaan ka codsanaynaa maxkamadda codsi anaga waliba ku hadlaya asxaabta ku xiran Cawiif waxaa leenahay cadaaladda hala marsiyo waliba ciqaab adag hala marsiyo sababtoo waxyaabaha si badanay bariyaanbu waxa kamid in sharaf dhac xumaan dil in loo geysto haweenka Soomaaliyeed taasna waxay u baahan tahay in la wada tashto halna laga gaaro ku ka gaar lahayd ayagaas xumeynaa ayaa kamid laakiin inta fiican waxa leenahay midkaan xal laga gaaro hana la wanaajiyo haweenka waxa hadda aniga ahaantayda shakhsiyaantayda aan ka hadlay waxa adduunka ugu jeclay waa haween وانا هويدي هوين كاسay kamid tahay wixii ku soo xigo walaalahay waa gabdho waxa waa ilaaha kontan ka dhigay
saas ay tahay inta dhib annaga ayaka ay nala maraan annaga lama marno xumaan yaan ugu dirin gabdhaha Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed ugu dirin dhibaato waa hooyooyinkeen waa shay aad loogu qiiroodo waa shay aad loogu xumaado gabdhahaasna waxaa leenahay kuwa sharaf ay ku dambaysaa Allah ka dhigo asxaabta halkaa nagula xiran horta waxaan ku gabaabinayaa inaad mar kasta ilaalisaan sharafta gabdhaha muuqaalkeenana maanta intaas uu ku soo kooban yahay fadlan aan ku xasuusiyo mar labaad haddii channelka aad ku cusub tahay subscribe dhe like na saar wixii fikradaada ay kula tahay iyo wixii adiga anaga aad ku qaldanahay intaba halkaas soo comment wadaag aad u maasantiin dhamaantiin intaan kulmi doono muuqaalka xiisaas iyo nabadgelyo